السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو dhawaada caruusad bilowda ka barateen qurxinta aroosada, diyaarinta aroosada iyo cunto karinta, cilaan saarka, cadaynta wajiga iyo jirkaba. Haddaba maanta waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa waxa weeyaan kareemkan caagadan ku jira. Kareemkan wuxuu ka samaysan yahay Suudaan baa lagu sameeyay, wuxuu ka samaysan yahay geera saliim, subdad shea iyo liin dhanaan. Saddexdaas ka kooban yahay geera saliin, liin dhanaan iyo subdad shea ama shea buttercup saa u taqaano. Saddexdaas ka kooban yahay. Kareemkan haddaad helayso koley laga yaabo in wadanka laga helo. Haddii xataa aad ka wadanka ka weydo, adiga ayaa gacantaada ku samaysan kara. Waxaad soo qaadaysaa geera saliim, liin dhanaan bad xabad liin dhanaan ku tuujinaysaa, subdad shea na waad ku daraysaa, waad isku walaaqaysaa, kadibna meel caagad baad ku shubanaysaa. Okay, haddaba waxyaabuhu taro aan idiin sheego. Waxyaabuhu taro waxa weeyaan jirka ayaa la mariyaa. Geera saliimka saddex shay ka kooban yahay waxa weeye geera saliimka oo ogtiin jirka suu naciimka uga dhigo, laymuunka sidoo kale isagana faraha markay adkaadaan, cirbaha adkaada xataa waa la mariyaa. subdad shea iyaduna faa'iidooyinkeeda lama soo koobi karo. Timaha dadka qaar mariyaan, timaha waa wanaagsan tahay. Wajiga waa la mariyaa, waa u fiican tahay. Jirka waa la mariyaa, waa u fiican tahay. Haddaba saddexdan oo saddexdaba ogtihiin faa'iidooyinka ay leeyihiin oo mid walba ku soo koobi karahayn oo la isku daro waxay tarayaan. Waxay sameynayaan jirkaaga naciim bay ka dhigayaan. Waad ku dhaashanaysaa, jirkaaga oo dhan baad marinaysaa. Markaad habeenkii waad ku seexanaysaa, waad iska mayrteed habeenkii doonayna ku seexatana maalintii inta guriga joogto ayaad marsanaysaa, hadhowna waad iska maydhaysaa. Haddii aanay ku dhibahayn waayo wax urama leh oo udgoon waad ku joogi kartaa. Caadi dhaashiga caadiga iskaga joogto ayaad ka dhigan kartaa. Intaad marsato ayaad iskaga joogi kartaa. Waxaad dareemi kartaa isbuuc gudihii ayaad ku dareemaysaa jirkaaga naciim kaga dhigaya oo jirkaaga oo softi noqday maasha Allah. Alaabtan waxaa loo mariyaa aroosadaha khaasatan wadanka Suudaan. Yani wadanka Suudaan waa wadan kaale arag aroosada se u diyaariyaan cajiib tahay. Marka waxa ka mid tahay waxyaabaha lagu diyaariyo maxay waa geera saliinka, liin dhanaanta iyo subdad shea la isku daray. Qofkii aan helayn ha samaystaan leeyahay. Insha Allah waa idin soo gelin doonaa waxyaabo badan oo kale oo aroosada lagu diyaariyo, khaasatan dhaqamada Suudaan oo qof kastoo garanaya qof Suudaaniya oo garan karo si jirkoodu qurux badan yahay. aad ba mahadsantiin. Alaabtan ha moogaanina, fadlan like, subscribe and share.